caseeyaha waxay ku kalifay xafday waa iska danjar hooyaday waa mul aabahayna uu naga dhintay adeer baan isnaa adeerkayna waxba nooma qabto markuu shaqeeyo 10,000 ama 5,000 buu noo keenaa saasay ugu kaliftay dantaanay tiri hooyaday baana nu shaqeeyaa oo xanuunsan adigu ma leedahay dadka waaweyn oo kala xaafadda u shaqeeya may waa laba yaryar iyo halkii maka dhashay beesinta ana ugu weyn meesha markii ana ugu weyn meesha maalintii lacag intee leeg baad ka shaqeysaa 30,000 ama 40,000 ama meelaha baan ka shaqeeyaa xageed geysaa lacagta aad shaqeyso hooyaday baan u geeyaa oo meel loo dhigta adu wax ma dhigataa ma dhigto maxaan u dhigan bal waxaan iskuul ku dhigtaan haystaa lacag cid naga bixisa ma haysto iskuulka agoominta lege hooyadeena way ka soo kaxaysay qof wax u qabta ma haysato iskuulka agoominta markaa geysay dana way ka soo kaxaysay saasaan baalishka u sameeyaa muddo intee leeg baad imika baalashkan waxaad ku jirtaa shaqadan baalashka wallaahi aduu ilaa iyo 6 bilood baan ku jiraa bishii 7aad galay imikana 10 jir baa xageed wax ka baalashaysaa kolba meerad baan fadhiisan jiray meeradina waa leeydiiday inaan fadhiisto naagtii lahayd baa igu jiri orodoo dibadda ka shaqee dibadda markaan tagan qofkii gudaha iga yeedhaya waxaan ha u gelin beegoona saawa cuntaynayaan markaad kabaha baalashayso imise lacagaad qofka ka qaadaa ku shilin marka labada beer yihiin 2,000 wax dhibaatooyin oo ka hor yimiday ma jiraan inta aad baalashka ku jirto may wallaahi waxba dhibaatayga ma hor imani waxa jira dhalinyaro badan oo baalashkiyo waxaan sameeya kuwaasi ma ku dhibaateeyaan may ma dhibaateeyaan naaga way jiraan ay baalisheeya kuwa baan la socseeyaa subaxii imisada timaadaa magaalada oo shaqada bilowda inteen leeg baad shaqeysaa waxaan shaqeeyaa 7 subaxnimo ilaa iyo 11 aan joogaa markay kowda gaadhana waan hooyadaa markaan shaqeeyo aroortii duurka marka leedaamo waan qado taga xafdada waan ka soo qadayaa galabtaan midda habeenka 9 biirana waan iska hooyadaa ugu dambeyntii maxaad bulshada Boorama iyo guud ahaan Soomaalida aad ugu baaqaysaa bulshada waxaan ugu baaqayaa inay soo caawiyaan isaan baalishka iskaga daayo oo wax u barto jeceshahay markaa inaad wax barato haddii lagu soo caawiyo waan jecelahay si fiican baan jecel aad madarsadii iskuul baan dhigan jiray haddana waan sii garanayaa quraanka inaan haddana barto oo saaid qalan jabiyo